السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys kusoo dhawaada maanta waxaa rabaa inaan idin sheego bandhigyada ugu waaweyn caalamka mid ka mid ah oo lagu qabto dalka Shiinaha meeshan saa u jeedidba oo baaxadeeda aad iyo aad u weyn tahay waxaa lagu soo bandhigaa bandhiga loo yaqaano Canton Fair kii waxaa la marwayaa 137 yacni dhowr sano soo socotay 2025 April ayaa la qaban doonaa doo Ilaahay dhaho dhowr phase u kala baxdaa phase 1 phase 2 iyo phase 3 mid walbana alaab qaas ah ayaa la soo bandhigaa insha Allah videoyada xigo ayaan idinku soo faahfaahin doonaa phase walba iyo wixii lagu soo bandhigo meeshan marka gudaha u soo gashid waxa u baahan tahay marka ugu horeyso ii sheeg inaad tagtid meel kaarar lagu soo qaato oo yacni adiga shakhsiyadaada iyo waxa tahay cadeynayso sa u jeedidba dadkan way xiran yihiin ayaga dhan qof aanan xirneen ma soo gali karo meeshaas sida loo qaato insha Allah ana idinkaga soo dhici doono oo idin soo sheegi doono kaararkaas markaa soo galaysid meeshan sa u jeedid waxa ku dhagan boorarkaas yararka ah boorarkaas waxay ku sheegayaan albaabada nambarada albaabada iyo sa u kala garanaysid meesha rabtid inaad tagtid albaabada ABC ay kala leeyihiin ABC laftirkiisa 1 2 3 si kala leh meeshan san u weyn u jeedid yacni ma ku dhumaysid meel kasto waxay leedahay meel oo yacni surface meeshan hadda calaamadan dadkan ay taagan yihiin oo kale waxay dadkaas ka caawinayaan inay ku siiyaan book yar oo la dhaho buyer's guide dadka yacni wax gadanayo book hagaayo buugaas waxaa ku qoran alaabta rabtid yacni meesha ka heli kartid numberka ka heli kartid albaabkee ka heli kartaa albaabada gudihiisa xitaa waxaa ku sii qoran ABCD yacni hadda meeshan G waaye albaabkan G ka soo gashay dhinaci kale G ka soo gashay laakiin dhinacan waxaa laga yaabaa inuu number kale yahay so ma dhumaysid meesha u socotid iyo meesha ka imaatay waxa soo dhan waa kala fahmaysaa dadkan saa u jeedid qolal yar yar ay leeyihiin oo showroom la dhaho yacni waxay ku soo bandhigayaan alaabahoodii isha dukaan walba wuxuu soo bandhigayaa alaabtiisi dukaamakan ma ahan dukaaman waxa waaye shirkado waaweyn waxa waaye warshado waaweyn oo alaabahaas soo saaro waxa arkaysaa warshado oo isku eg waxay sameeyaan waxa laga yaabaa warshadaha qaar inay raqiis yihiin warshadaha qaarna ay qaali yihiin quality inay ku kala duwan yihiin sidoo kale meeshan saa u jeedid swimming pool-ka waaye alaabaha lagu sameeyo oo guryaha la dhigan karo sa u maleynayo iyo waxyaabaha outdoor-ka loogu talagalay banaanada in la dhigto loogu talagalay meeshaas ka helaysaa marka meeshan saa u jeedid yacni design-ka rabtid nooca rabtid color-ka rabtid wax walba waa ka helaysaa maxaa la qiimihiisa ku sheegayaan inay kula heshiiyaan diyaar ay kula yihiin maxaa la dhahaa ii sheeg waxaa laga yaabaa xitaa in oo yacni business kaariyashooda inay ku siiyaan oo hadhow aad ku wareertid soo muhiimada waxaa waaye inaad book yar soo qaadatid adiga midka runta u danaynaysid oo kaleeto inaad numberkooda bookgaas yarka aad ku qoratid sidaad ugu dhex qaldin because ayaga dhan waxay isku dayayaan inay business kaarkooda ay ku wada siiyaan si aad ula soo xiriirtid marka ii sheeg meeshan waxaa waaye haddaad dhahdid waa soconayaa luga xanuuna ka qaadaysaa ma fahamtay marka waxaa muhiim ah inaad soo xiratid kobo aad iyo aad comfortable u ah oo yacni xilli dheer aad ku socon kartid because meeshan waa meel aad iyo aad u weyn maxaa la dhahaa ii sheeg lugaha waxaa waaye zaa'id ay ku xanuunayaan haddaad haysanin kobo oo yacni comfortable ah dhar oo comfortable ah dadka dhan saa u jeedid ma xirno suudad iyo yacni sida business camal people ma u labisno ayaga dhan waxay u labisan yihiin si oo iska caadi ah oo yacni comfortable ah because meeshan waxa waaye subaxisa ugu soo gashid habeenkii ka baxaysaa adoo daalan marka muhiimada waxa waaye adoo comfortable ah inaad dhex socon kartid oo waxaa rabtid yacni sameyn kartid sidoo kaleeto haddaa u fiirsid dadka waxay wataan boorsada dhabarka oo kaleeto because ayaga dhan waxaa la wada siinayaa buwaagta oo yacni hadda shirkadan oo kaleeto buug yaray haysataa oo waxa yacni sawiraantan dhan ugu dhagan yihiin waxyaabahay gadaan soo adiga waxaa muhiim ah inaad wadatid boorso aad ku xariisan kartid alaabtaada si aad comfortable u dareemtid markaad soconaysid xitaa oo yacni kaarar badan iyo buwaag badan yacni si nidaam aad u wadatid midda kaleeto waxaa waaye meeshan hoteeladooda kaleeto markaa imaanaysid waxaa laga yaabaa inay diyaariyaan basas
oo meeshaan imaanayo soo xilli hore ku keenayaan basaskaas soo raaci kartaa adoona magaalada kusoo dhex wareerin meeshaad markaa imaadid habeenkii markaa laabanay sidoo kale waa la xiraa horaa laga xiraa 12 saacbo horaa markaas yacni isku diyaarinaysaa inaa baskaagii meeshiisa aadid oo hotelkaagii toos kuu geenayay marka meelahan oo kaleeto markaa imaadid inaad dhuntid yacni ma fududo ma fahamtay waa very maxaa la ishay convenient very easy saa ujeedid bo dadka qaar waxay soo bandhigayaan alaabahooda oo electronic oo hadaa xitaa biyo lagu dhex shubo waxna noqonaynin ma fahamtay alaabahan oo kaleeto waa kuwa aroosyada oo maxaa la dhahaa isheeg laga daari karo waxyaabaha loogu talagalay in lagu qurxisto hoolalka waxay ku siinayaan business kaaryadan oo kuwana business kaaryadan maxaa la dhahaa isheeg ayaga dhanka aruurinaysa soo muhiimadda waxaa waaye kaa rabtid adiga inaa intaa maxaa la dhahaa isheeg buug yar soo qaadatid aad sii qoratid dhowr shirkado ama dukaamada isku dhadhow isku wax sameeyaan soo adiga hadhow saa ula gorgortami kartid oo ula maxaa la macaamili kartid adiga kugu xirantaa laakiin midda isdhahdid macquul waaye intaa meesha dhex joogtid inaad qoratid fiican marka insha Allah waxaan idin soo sameyn doonaa videoyo loogu talagalay yacni qofka imaanayo muxuu u baahan yahay inuu sidoo u baahan yahay isku sii diyaariyo marka imaadidoo kaleeto maxaa u baahan tahay inaad sameysid iyo faceska kala duwan iyo face kasta wixii la soo bandhigaa insha Allah waxaas oo dhan ana idin la soo socodsiin doono ka faa'iideysi wanaagsan insha Allah la socod wanaagsan khayr badan ay idin rajeynaa insha Allah subscribe like and share ha iga iloobin khayr badan ay idin rajeynaa insha Allah maca salaama